madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaaniyo iyo wafdi horkacayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa markii socdaal ay ku tageen dhowr dal. madaxweynaha Silaaniyo ayaa wax yar kadib shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa kana warbixiyay socdaalkiisa. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warkan nooga soo diray Hargeysa. kadib markii muddo bil gaadhaysa uu madaxweyne Silaaniyo iyo wafdi uu hogaaminaya ay safar dibadda ugu maqnaayeen ayay maanta dalka dib ugu soo laabteen. waxay muddada safar isxigxigay ay ku tageen dalalka Itoobiya, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka iyaga oo la kulmay mas'uuliyiin sarsare oo dalalkaas ka tirsan. madaxweyne Silaaniyo intii uu dalka Ingiriiska joogay ayuu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron iyaga oo kulan ay yeesheen aanay labada hogaamiye isku afgaran ka qaybgalka shirka London ee laga hadlayo arrimaha Soomaalida oo udub dhexaad u ahaa kulankooda. madaxweyne Silaaniyo oo su'aal arrintaas la xidhiidha la weydiiyay oo ku saabsanayd hadiiba ay diideen ka qaybgalka shirka London ee arrimaha Soomaalida iyo waliba iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka kulan ay yeesheen kadib sheegtay in ay ku shaqaynayso midnimada Soomaaliya in arrimahaasi ay go'doon gelin karaan Somaliland ayuu madaxweyne Silaaniyo ku jawaabay. go'doon haddii naga dhigamayaan way naga duulayna ee duulayna soo dhaweynayso heer walba u tagayna waa taa duulayna macaamilayso wayna ogeeno ilaahay marka اعتراف dawladdu way nala macaamishaa way nala shaqaysaa way noo timaadaa way nala joogtaa laakiin ilaa waqtiga intii Soomaaliland abuuratay dawladdu mar qura اعتراف inuu ma ifin dagaalku inagu nala jira iyo adkaysiga iyo go'aanka ummadeen iyo ku adkaysiga inaynu ku adkaysano ilaa intaynu himiladeena meel ka gaarino aynu ku adkaysano dawladda ka dhaadhicino faasiino laakiin awal ba اعتراف waxmayno haysan laakiin taas inaga joojin inaynu dawladdu tagno inaynu dawladdu la macaamilo inay dhaqaale siiso inay baaxamista siiso inay maalgashi dhulkeena ku samayso midna inaga joojin taas weeye ta aanu ku adkaysanana aanu wadayna sidaynu soo xibnaano iyo sidaynu ugu dhabar adeegnana ayay ku xirantay marbeerka himiladeena ka gaariyo guusheena madaxweyne Silaaniyo oo la weydiiyay mar haddii ay hay'adaha qaramada midoobay xilligan fadhigoodii u rarayaan magaalada Muqdisho in arrintaasi saameyn ku yeelanayso iyo waliba inay jirto in cid ay kala hadleen arrintaasi intii ay ku sugnaayeen dalka Mareykanka oo fadhi u ah qaramada midoobay ayuu madaxweynuhu sheegay. ana hadii loo baado waxaan kala baan hadallo doonoma in United Nations ku nooma iman jamciyadda qurumo laakiin arrintaasi waa arrin jamciyadda qurumaha khusaysa hadda halka degta awalba waa deganayd awal bacid bay nooga imanaysaa heerku wadarkeedu halka ma in halkaas u ahaa halka xasiloona dariiba ka kaxaynaysa hadii xasiloona ku soo xasiloonadii ay markaa ay dareemeen ila ka yaraateen halkaas u guurayeen laakiin taa macnaheedu ma aha inoo ma ay nala shaqeyn ma aha sida way noolo imanayeen nala shaqeeyaan wixii tan ay hawleena inuu ka fushan doono insha Allah. socdaalkiisan uu madaxweyne Silaaniyo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalinta Salaasada ah ee 7 bishan uu magaalada London ka furmi doono shir laga hadlayo arrimaha Soomaaliya taas oo uu fuud kala duwan ay xilligan u sii jeedaan dhinaca magaalada London hase ahaatee xukuumadda Somaliland ayaa iyadu shirkaas ku gacan sayday. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.